maanta xalqadeena kale waxay ku bilaamaysaa gabadhaas oo gabadhii baaritaanka samaynaysay waxayna bilaabana sheeko ka sheegaysay ay ku fahansiinayso seefta malcuunada xagga ka timid waxay tiri waxaa jiraya ninkaas wuxuu ahaa nin boqora kadibna wuxuu haystay seeftaas wuxuuna laayay 100 nin seeftaasna ugu dambeyn waxay kusoo wareegtay gacantiisa ilaa ugu dambeyn laayay xaaskiisii caruurtiisii oo noqday nin malcuun ama lacnada seeftii lacnada ahay ku faaftay jirkiisa kadibna ninkaas wuxuu bilaabay dadkii magaalada jooga oo dhan u wada laayo ugu dambeyn seeftii isaga ay disho oo xagaas ku geedo haddaba 2 nin oo kamid ah 2 nin waxay sharaxaysay ayaa waxay soo aadaan kambanigaasna waxay ku arkaan gabadhaasna waa gabadha xiriir kala dhaxaysa ninkan wuxuuna ku bilaabay inuu malaga salaamo gabadhii kadibna gabadha salaanta way ka qaadaa dhanka loo arkaynaa Marcos iyo wiilkii Guy kaasoo ka sheekaysanaya ninkii Guy wuxuu yiraahdaa ugu dambeyn xaaskay way geeriyootay muddada dheer isla nooleen markaas Guy bal hadal wuxuu ku yiraahdaa taas odayga ii sheegay maxamed ku murugaysantahay masukraha waan ku murugsanahay laakiin adiga Guy maxaa noloshan hadaf kale ku yiraahdaa markaas Guy wuxuu ku yiraahdaa waxaan hadaf kale yahay ma jirto oo iska noolahay masukra adigu xaaskaaga markii ka geeriyootay kadib rajo malihiidan ku arkaya kadib waxaan arkaynaa ninkii iyo gabadhii xiriir u dhaxeeyay kadib markay shumiska dhameystaan ay wiilka tima jaalaha la soo jeestaan waxay ku yiraahdaan waan u dhownahay meeshan ka similay bangiga dhacitaanka oo imika waxay rabaan inay soo dhacaan seefti lacnada haysan oo qasad ku jirta kadibna waxay bilaabeen in kaamirooyinka iska fiiriyaan ninkii kaamirada ilaalin xuma arko oo waxay isticmaalaan qalabkaas oo jirkiisa qarinaya kadib ragayoo si tartiib ah soo aadaan dhakay sare ee guriga kadibna waxay bilaabeen soo guurtaan oo wiilkii la hadla wiilkii tima jaalaha wuxuu ku yiraahdaa taxadar kadib waxay bilaabeen meeshii ka soo dhacaan markay ka soo dhacaan ayaa waxay yiraahdaan hadaba qasnad waan u dhownahay laakiin qasnad kale meesha kale naga xigta maasa gabadh la waxay ku yiraahdaan qasnad kale aan aragnay intaan gaarin oo qasnad kale ka sii horeysa markaas gabadh waxay ku tiraahdaa iska taxadar maasa wiilkii tima jaalaha wuxuu isku dayaa inuu kaamirada meesha ay ka dhaho laakiin waxa dhacday in leedka digniinta oo shidmo oo meesha dhan ay noqoto qalaaso waxaan u soo sii daayay gaas kadib gabadhii maamulaha ahayd ayaa wuxuu yimaadaa ninkii maamul wuxuu ku yiraahdaa wax isku daysan inay khiyaanto soo maaha way ka fashilantay tashkiiladaadii kadib dhiisu isbedelaan dhankana ninkii gaaska wuxuu bilaabay inuu kusii saaciido wuxuuna soo qaatay ninkii mudiirka ama maamulaha seefta lacnadaysan wuxuuna ku soo weeraray gabadhii markaas gabadhii soo dili raba ayaa xagga waxa kaga yimaaday wiilkii wuxuuna bilaabay inuu ka celiyo gabadhii markaas ninkii mudiirka wuxuu isku dayay inuu seefta ku taago gabadha siraado laakiin wiilkii iska dhiga wiilkiina markay seefta ku dhacdo waxa dhacay in dhabarkii ka dhaawacdo dhankana waxa ka yimaaday wiilkii tima jaala wuxuu bilaabay ninkii mudiirka madax kala gooyo dhankana ninkii waxaa dhacday inay seefta lacnadii ku faafto oo hadal maqlo hadalkaas oo in garabkiisa lacnad ka gashay markaas waxay soo aadaan dhan looqa waxay bilaabeen xaaladiisa weydiin wuxuu ku yiraahdaa xaaladaydu oo kuma fiicanahay markaas gabadhu way indheeysa soo fiirisay way ka shakisan tahay wiilka waxa helay inay kale laakiin wiilkii tima jaalaha wuxuu ku istaji kadib waxa dhacay wiilkii tima jaalaha inuu iska tago markaas ninkii wuxuu bilaabay inuu qalbigiisa ka dareemo xanuunkaas oo ah in lagu leeyahay dil gabadha kadib ninkii wuxuu bilaabay xaaskiisa iskala qaato waqti oo waqti fiican iska qaataan oo romance iska dhigaan oo waxyaabo badan ay sameeyaan oo maalintaas isa soo waashaan markaas wiilkii wuxuu bilaabay gabadhii oo shumir raba ninkii waxa dhacay lacnadii inay ku soo kacdo waxna ku yiraahdaa dil gabadha maase wiilku wuxuu yiraahdaa isma xakameyn karayo ee fadlan iga fogow ragga la soo laabnay wiilkii Guy iyo wiilkii Marcos wiilkii Guy wuxuu ku yiraahdaa anigu waxaan ku soo koray caayla faqiiriina oo nolol faqiiraan ku soo koray han soo laabnay wiilkii gabadhii waxay bilaabeen ka intii wiilka ka soo dabra qaada ku tiraahdo xageediga martay xaajigeeygi maase wuxuu ku yiraahdaa iga fogooni kugu yiri laakiin waxa dhacay wiilkii inuu control kala mo gabadha soo hujuumo markaas waxa meesha soo gaaray wiilkii tima jaalaha wuxuu bilaabay ka difaaco laakiin wiilku laga adkaada meesha waxa yimaada Marcos oo darbad ku jiida oo ninkii ka celiyay gabadhii markuu seefta lacnada ahay ay aragtay in ninka laga awood badan yahay ay wax isticmaashaa awoodeeda ama qalabkeeda xirataa kadib waxay bilaabeen wiilkii in la dagaalanta Marcos oo Marcos ay ka dhigtay wiil daciif ah markaas wiilkii gaaba xanaaqa wuxuu bilaabay dhanka kale ka soo weeraro seeftii lacnadaysan waxay tiraahdaa allahay xigay iga soo weeraray markaas wiilkii gaaba xagga daba kaga yimaada oo seefta ku jiida halkaasina laga taqalusaa seeftii lacnadaysnayd dhanka kale kooxii baaritaanka sameeynayay waxay bilaabeen wiilka maskaxiisa baaraan maskaxiisana waxay ku arkaan inay ku jirto lacnada seeftiida oo wiilkiisa xakamin kari laayahay ugu dambeyn wiilku bogsadaa uuna soo caafimaada xaaskiisa inuu yimaada waxay bilowdeen ku farxay ku tiraahdo ugu dambeyn waan ku faraxsanahay inay caadiga ku soo laabatay waxay bilowdeen dhoola cadayso dhanka kale wiilkii tima jaalaha iyo wiilkii kale jirkooda wax lagu sameeyay taxfiis ama baaritaan kadibna baaritaankaas laga raadinay in seefta lacnada ay ku hadhay kadibna seefta lacnada way ka baaba'daa jirkiisa oo xumo noqdaan haddaba nimiga wuxuu isku jiraa wiil taajira wuxuuna ku riyoonayaa seefta lacnada guriga u taalay isagoo helay subax markii waagu bariyo qoreecanay waxa la hadlay ninkii shaqaalihiisa wuxuu ku yiraahdaa xalay maxaa ku yeelay sukra xal waxa ku riyoonay inuu helo seefta oo awood yeeshay masoo ku yiraahdaa seeftaas raba inay taxfiis igu sameeyaan baaritaan ee meeshu yaalay sheeg masoo kale waxa jira ninkaas oo agoomaha kuriya
kaasoo gurigiisu ka baxsay magaalada oo dhanka baadiyaha ku yaala kaasoo yaqaan sida seefa loo sameeyo wuxuuna korsaday wiil yar oo yaqaan sida seefa loo sameeyo oo jirkiisa ku jirta seef masuula waxa rabay inay kaas tago dhanka gabadh yar waxay bilaw wiilkii gaay inay tabto oo abeedi mad wuxuu ku raahdaa wiilkii gaaba tabaysa Soomaa isaga gabadh ku tiraahdaa aabo wiilkaas waxaan u hayaa jacayl walaalnimo u hayaa waana u xiisay kadib aabo wuxuu ku raahdaa gabadhaydii gaay waxaan filayay inuu noo soo laabani oo saas nagu daayay markaas gabadh tiraahdo waxaan rajaynayaa qamarka daawanaysid dhanka loo harkana wiilkii gaay isagana qamarka daawanaya markaas gabadh soo xasuusta markii uu yareed oo yani soo weerayaygu oo wiilka gaay gacantiisa soo dhigay yeeygu qaniinay kadib uu ka baxsaday oo yani nafteeda badbaadiyay waxay tiraahdaa maalintaas way badbaadisay maalintaas aan jacayl yani kugu qaaday ilaahay haddana jacaylkan kugu qaba walaal waxaan rajaynayaa aad inaad noolaan doontid oo nolol fiican ku noolaan doontid dhanka kale gaay wuxuu yimaaday wiilkii Marcos wuxuuna ku yiraahdaa hadda waxaa noqotay wiil awood leh laakiin waxaa tahay daciif markaasuu ku yiraahdaa meelo kaftamaysa masuu ku yiraahdaa waxaa tahay wiil daciif ah masuu ku yiraahdaa maxaad ka wadaa sin daciif ah masuu ku yiraahdaa waxaa tahay run ahaantii daciif oo nin awood badan ma tihid haddaad awood badan tahay kaliya yani iguma diisan inaan la dagaalamo ninka bahalka ahaa ama yani seefta lacnada ku jirtay dhanka kale oo imina wiilkii taajirkii wuxuu yimaadaa tuuladii ay ku noolaayeen wiilka Agooma wuxuu baa inuu sawir iska sameeyo sawirkaas oo ah in wiilkan yar يعني سيفت لعنة ku jirta wuxuu ka jeeday wiilkan gaay iyo awoogi oo yani sawirahan uga sameeyay waraahdo waxaan rajaynaynaa soo ay kan doonaan kadib waxay maada gurigii dhanka labaad mana gabadhi kale Kisikia waxay maada iskuulkii saaxiibadii ay la sheekaystaan waxaan ku tiraahdaa saaxiib waa fikraysa maxaa kale Kisikia wuxuu ku tiraahdaa waxay ma helin haddaba nimigu wax isku jiraanin ninkaas wuxuu soo booqdaa odaygii dhalay wiilkan yar gaay odayga soo korsay ninkii dhalay yani gaay ninkii soo korsay odaygii dhalay soo booqdaa waxaan ku yiraahdaa waxaan rajaynaynaa inuu gaay xagan joogo masuu kala gaay mar hore naga tagay maxaad ka doonaysay masuu kala waxaan rabaa gaay ka argoosto sababtuna waxa weeyaan in gaay mar uu aan naftayga qaad gaaray oo dili gaaray saasaan rabaa inaan uga argoosto masuu ku yiraahdaa gaay hadda wuxuu ku nool yahay magaalada oo nolol fiican isku nool yahay mase wuxuu yimaaday wiilkii Marcos gaay wuxuu ku yiraahdaa adu waxa tahay wiil daciif fasaa ku soo sheegay sababtoo ma lahayd jacayl hada jacayl lahaan lahayd waxaan ku aqoon lahaa inaad tahay wiil awood badan laakiin hada jacayl ma lahayd saas daraaddeed waxaan ku tixgelinayaa inaad awood lahayd oo wiil daciif aad tahay masuu ku yiraahdaa gaay markaas gaay wuxuu ku jawaab ku yiraahdaa haddana jacayl lahayn kama turjumaysan aan ahay wiil yani daciifa maasaa wuxuu bilaabay uga sheeko wiilkii Marcos wuxuu ku yiraahdaa anigu markaa militariga ku jiray maalmo kamid ah nin tuuga eryanayna ayaan ku wuxuu soo tuuraa bombadii aan u qaraxda kadibna ragaani la socday way wada geeriyoodaan maalintaasna waxay mata seeftii lacnada ahayd waxay ku tiraahdaa isticmaal hal mar mid kale oo asxaabay adawaad fara badan ama silaaxyo fara badan ay yani lacnadan galaysaa kaliya kuma koona seefta yani waxay seefta oo eega garaan gir ama yani seer kala ayaa ku tira itaabsoon anaa kaaga arguday kadib wuxuu bilaabay Marcos inuu taabto oo yani uu yeeshay awood oo xagga ragga ka taqaluso kadib wuxuu isku dayay inuu ragga kale u ilaayo laakiin sawirkiisa dhulka ku dhaca maase sawirkiisa wuxuu ku arkaa isagii xaaskiisii kadib wuxuu bilaabay caadigiisa ku soo laabto oo xoogaa la duufnimo yani iyo wanaag yar gasho dhanka la soo laabana gabadha Kisikia markay iskuul ka soo baxdo ee wadada marayso ayaa waxa uu yimaaday wiilkii taajirka wuxuuna ku yiraahdaa waxa rabay inay saxiixdo mashruucaas oo ah in yani aan wiilka gaay la kulmi doono masuu ku tiraahdaa wiilkan gaay mikan mas'uul ka miyay ay garaalaho kadib Kisikia wax biloon iska soo dhaqaado masala uu inuu dibjirina gabadhi dhexdu istaaga waxaan ku gabadhi istaag masa gabadhi ku taageera lahaa fadlan dariiqay banay masa wax soo baxay wiilkii taajirka wuxuu ku yiraahdaa u banay gabadha masa ku raadiyo isku meel isku diin wax bilow wiilkiina garaacan labadina dibjirta ahaa waxay bilaabeen iska soo aadaan dhankii magaalada kadib waxay arkaan gabadhaas gabadh qurux badan kadib waxay bilaabeen gabadhi foodes dhahan laakiin gabadhu waxay bilaabeen seefta isticmaasho kadib ay rag mid kamid disho kadib mid kale soo bilaabeen soo cararo oo qayliyo iraahdo ibadbaadiya fadlan kadib wiilkii gaay meesha soo dhax gala wuxuu bilaabay gabadhi la dagaalamo masa gabadhu wax ku tiraahdaa gaay waan ku xiisay run ahaantii xageyga maqnayn markaas wiilku wuxuu ku yiraahdaa noloshan ku noolaa nolol ka duwan ma hel hadda waana ku mahadsan tahay mana rabo inay noloshan ku soo laabto masa gabadhu wax bilaabay iskuulka ku soo laabto subaxdii waxaan iskuulka la keenay arday cusub ardaygaas oo ah wiilkii taajirka ahaa intaas maanta saxaa xalqadii noogu dhamanaysa fadlan muuqaalkuna cajiiblaagta saara oo agtiinsan igula soo degdegayo xalqadahan la soo dhaqsano ee fadlan inay dadaal muuqaalka laagta saara maca salaam oo shuufu ku fi xalqa jaay